السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soo dhawaada tiimkeena ku soo dhawaada systemkeena cusub systemkan ama videogan waxaan rabaa inaan idinku tuso sida loo diiwaan geliyo bukaanka iyo waxyaabaha marka aynu bukaanka diiwaan gelinayno inaga reeban waxyaabaha aynaan samaynayn iyo weliba waxyaabaha aynu khasab tahay inaynu samayno muuqaalkan ayaa rabaa inaan idinku tuso muuqaalkan wuxuu keliya khaas u yahay bukaanka sidii aad u diiwaan gelin lahayd iyo xogta aad ka qori lahayd iyo weliba habka aad u qori lahayd intaanan aan sii guda gelin waxaan rabaa inaan idiin sheego bukaanka markaad diiwaan gelinayso isticmaal af soomaali isticmaal af soomaali bukaanka markaynu diiwaan gelinayno isticmaal af soomaali taa macnaheedu waxa weeyaan ha isticmaalin ingiriish ha isticmaalin wax kaloo ka soo haray isticmaal keliya soomaali hab qoraalka aynu u qoraalayno ama magaca aynu u qorayno waxa khasaba oo lagama maarmaana inaynu u qorno habka soomaaliga ah hadduu magacu leeyahay shaqal dhaadheer waxaanu isticmaalaynaa shaqalkiisa dhaadheer ma soo gaabinayno tusaale ahaan haddii bukaanka magaciisu yahay samaale oo sida aad u qortay waa soomaali waana sax laakiin magaca samaale sidaa uma qorno magaca samaale wuxuu qormaa sidaas ayuu u qormaa samaale xarfad dhaadheer ayaa ku jira laba a ayaa ku jira sidaasaana sax markaad wax qorayso magaca ha soo koobin waxaan isku wada waafaqnay dhammaan markaynu magac diiwaan gelinayno ama bukaan markaynu diiwaan gelinayno mar walba inaynu isticmaalno shaqa dhaadheer sida caadiga ee soomaaliga aynu u qorno inaynu u qorno english inaga daayi english lama isticmaali doono haddii uu ilahay idhaahdo si aynu khaladaadkeena u yarayno haddii tusaale ahaan qofka bukaanku yahay cabdiraxmaan cabdilaahi cabdixakiin cabdiwahaab waxaasoo dhan hadduu yahay sidee loo qorayaa ma cabdi baad qori may waa khalad english iska daa isaga waxaad qori doontaa cabdiraxmaan oo siida waxaad slash baad saa u dhigi doontaa may sidaa ha u qorin ma htaad ka dhigi doontaa maxaadii baad ku bedeli doontaa h may sidaa ha u qorin sidaa totally ha u qorin cabdiraxmaan sidaa ha u qorin cabdiraxmaan waxaad u qori doontaa sida saxda ah af soomaali isku xidhiidhi cabdi slash ha isticmaalin mararka qaarkood waxaa dhaci karta slashta inay dadka qaarkood garan waayo keyboardka halkay kaga taalo markaa tu kale ama slash nooc kale waxaas inay isticmaalaan markaas aynu isaga soo yarayno waxaasoo dhan base aynu usoo koobno isticmaal cabdiraxmaan eges ha isticmaalin h waxaad isticmaashaa eges ha isticmaal cabdiraxmaan sidaa uu yahay u dhamaystir marka kuwaasi waxaan u baahannahay inaynu ku dabaqno markaynu bukaanka diiwaan gelinayno sidee loo diiwaan gelinaya haddaba systemkaaga markaad kusoo gasho username iyo password kulley tiimkeena diiwaan gelinaya ee diiwaangelinta samaynaya qof walba u access garayn karaa meesha bukaanka laga diiwaan geliyo marka haddii aad tahay nursing oo aad joogto emergency-ga haddii aad tahay doctor haddii aad tahay pharmacy haddii aad tahay reception waad u baahan tahay bukaan inaad diiwaan geliso sideed u diiwaan gelinaysaa markaa waxaad u diiwaan gelini waxaad tegi doontaa halka ay ku qoran tahay patient waxaad ka dooran doontaa halka ay ku qoran tahay patient markaad ka doorato halkan ayaad iman doontaa waxaad ku dhufan doontaa plastaa micnaheedu waxa weeyaan ku dar bukaan cusub halkan waxaad ku qori doontaa waa full name weeyaan maaha magaciisii koowaad magaciisii labaad waa full name magaciisoo dhammaystiran weeyaan saddexdiisii magac weeyaan markaa sida aad u qoraysa ayaan idiin sheegaya iminka waxaan qorayaa bukaan magaciisa la dhahda cabdiraxmaan cusmaan cabdiwahaab waa tusaale ahaan weeyaan sidaasi sax maaha english baan ku qoray no khalad weeyaan maxaad ka dhigi cabdiraxmaan ayaad ka dhigi soomaali baad ku bedeli cismaan ayaad ka dhigi cismaan laba eeg cabdiwahaab isagana waxaad ka dhigi cabdiwahaab maahina waa cabdiwahaab sidaas ayaad u qoray cabdiraxmaan cismaan cabdiwahaab sidaasaynu isku wada raacaynaa qof kastiba soomaali waa yaqaana qof kastiba sida loo qoro waa yaqaana cidnaba kama qaldamayso cabdi wahaab cabdi waxaasoo dhan waan iska wada daynaynaa waxaa ingiliishka lagu qoray oo dhan baan iska wada dhaafi doonaa hadduu ilahay idhaa markaa sidaas ayaad u qori doontaa bukaankayga markaan diiwaan gelinayo magaciisa saddexaad halkaas ayaad ku qori halkan waxaad gelin doontaa genderkiisa qofka kuu joogo waa male iyo female marka hadduu male yahayna male baad gelin hadduu female yahayna female ayaad gelin halkan waxaan gelin doonaa numberkiisa sida halkaa kugu qoran waxaad ka bilaabi doontaa 63 ayaad ka bilaabi doontaa waxaad odhan doontaa 4505939 nambarkiisa oo dhammaystiran halkaa waxaynu gelin doonaa qofka bukaanka ah qofka inoo yimiday qofka aynu diiwaan gelinayno nambarkiisa oo dhammaystiran halkaa waxaynu gelin doonaa da'da uu jiro markaa waxaad ku odhanaya mise jir baa tahay
haddii uu kuu sheego ood onad xishood ka dareemin qofku da'diisa inuu kuu sheego waa sax waad weydiin kartaa laakiin haddii aad isleedahay qofkaas uu ka xishoonaya ama si kale aad leedahay adigu qiyaas just qiyaas waxaad tirahdaa waa 24 jir weeyaan waa 35 jir weeyaan qiyaas adigu way halkan waxaad gelin doontaa numberka aad halkan soo gelisay age-ka age-kiisii bayna halkan soo gelin laakiin age-ku wuxuu noqon karaa sanado wuxuu noqon karaa bilo wuxuu noqon karaa maalmo marka 24kan haddii aad uga jeedo 24 sano halkan ayaad gelin haddii aad halkan ayaad ka soo dooran haddii aad uga jeedo 24 bilood halkaas ayaad ka dooran haddii aad uga jeedo 24 cishana halkaas ayaad ka dooran kolba midkii ay ku tahay marka aniga waxaan ku dhaafaya 24 sano qofkan imika inoo yimiday just waa iska dheeraad weeyaan single ba ama married ba waa iska dheeraad weeyaan laakiin si liitadu inoogu qurux badnaato dadka qaarkood lama weydiin karo laakiin qofka inaga ogolaada waynu weydiinaynaa adigu ma single baa tahay ma married baa tahay intaasun baa waxaan filayaa ugu sii wacan hadduu single yahayna markaa single baad odhanay haddii uu married yahayna married baad odhanay halkan waxaynu gelinaynaa adresskiisa marka adresskiisa sidee baynu u qoraynaa waxaynu leenahay adresskiisa qofkan wuxuu degan yahay xalane ayuu degan yahay boorama halkan qofkan wuxuu degan yahay xalane boorama ama sheekh cali boorama halkaas ayuu degan yahay marka halkani waxa weeyaan sawirkiisa biishinka sawirkiisa ma hayno marka waa dheeraad weeyaan inta badanna ma dhacdo biishinka sawirkiisa inaynu helno intaa waad iska dhaafi doontaa laakiin intaa kale waa inoo muhiim magaciisa iyo genderkiisa iyo phone numberkiisa iyo agekiisa waa inoo muhiim weeyaan intaa markaa samayso kadibna waxaad odhan doontaa submit ayaad odhan doontaa wakaimka bukaankaasi waa laygu soo daray idgiisuna waa kaa cabdiraxmaan cismaan cabdiwahaab cabdiraxmaan cismaan cabdiwahaab agekiisu waa ka imika typekiisu waa just outpatient weeyaan haddii aad waxuun aad khaladay ama wuxuun aad rabto inka tusaale ahaan cabdiraxmaan cismaan ma ahayn wuxuu ahaa cabdiraxmaan sadar ayuu ahaa ama haddii aad wax qalada aad samayso magaciisa markaad diiwaangelinaysay ama nambarkiisa aad qaladay ama genderkiisa iyo nin iyo naag midkuu yahay aad qaladay ama agekiisa wuxuun aad ka qaladay halkaa ayaad ku dhufan doontaa marka hore sidan ayuu kugu soo baxayaa bahashan way jiijiidmaysaa xagga bidixda iyo midigtaba way jiijiidmaysaa tan ayaad xaggan usoo jiidi deetana waxaad ku dhufan doontaa baasha yare akhtarka greenka akhtarka ayaad ku dhufani waa kan qofkii ayaa inoo soo baxay marka hadduu cismaan ahaa cismaan baad ku diin kolba wixii aad update garaynayso magaca ayaad update gareyn genderka ayaad update gareyn numberka ayaad update gareyn age wax kastaba waad update gareyn update ayaad ku sameyn calashaan wax ka bedelid ayaad ku sameyn haddii aad u baahato qofkaasi inuu khalad yahay ama si qaldan aad ugu soo dartay waxaad ku dhufan doontaa delete markaad ku dhufato wuxuu kuu soo saarayaa ma hubtaa qofkan inaad delete garayso so yes haddii aad hubto yes ayaad ku dhufani haddii kalena cancel ayaad ku dhufani waxaan rabaa intaa inaan sii raaciyo beshinkii taanan dhaafin haddii aad bukaan raadinayso halkaa waxaa ku taala waa filter dhiitadan ii filter garee dhiitada halkan iigu soo baxday xoogaha iigu samee intaan u baahanahay isoo tus isoo daabac halkan hoose iga tus marka qofka haddii aan raadinayno magaciisoo kale tusaale ahaan cabdiraxmaan baan raadinayaa ama waxaad raadinaysaaba tusaale ahaan axmed qof la yidhaahdo halkaas ayaad ku qori deetana waxaa odhanay filter markaa iminka axmed ma jiro wax axmed oo ii soo baxaya male haddii aad raadinayso qof la yidhaahdo khadar halkaasubaad waxaad ku qori doontaa khadar haddii aad raadinayso cabdiwahaab halkaas ayaad ku qori doontaa cabdiwahaab let's say imika waxaan raadinaynaa cabdiraxmaan baan raadinaynaa halkaas ayaan ku qoraya cabdiraxmaan wakaa imikaba ii soo baxaya cabdiraxmaan markaa qofka aan raadinayno filtran ayaynu halkaa ku samaynayna halkaa waxaynu kaga raadin doonaa nambarkiisa imika tusaale ahaan waxaan raadinayaa qofka la yidhaahdo nambarkiisu yahay 4505939 qof nambarkiisu noocaa yahay baan raadinaya waxaan ka bilaabi doonaa 63ga haddaan imika filter aan idhaahdo waa kan qofka uu yahay nambarkiisu 634505 haddii aan raadinayo qof kale oo nambarkiisu yahay 2459 intaasaan ka xasuustaa just intaaba waad raadin kartaa qofka nambarkiisu noocaa yahay baa kuu soo baxaya waay marka taasina waxay la xidhiidhaa habka aynu u raadinayno bukaanadeena habka aynu u raadinayno marka halkan waxaa ku taala waa close alashaan waxa yar ee kuu soo baxay iga soo xidh tanna waad ka xidhi kartaa taana waad ku xidhi kartaa halkan waxaa ku taala clear waxa halkan ku qoran iga masax waxa halkan ku qoran halkan waxaa ku qoran halkan waxaa ku taala filter halkan markaad wax geliso haddaad tiraahdo filter alashaan isoo daabac weeyaan markaa bukaan kastoo uu khadar ku jiro ayaa kuu soo baxaya maadaama halkaa khadar aan ku qoray maaha magaciisii koowaad laakiin khadar baa ku jira khadar mitirkiisu waa ku jira sidaas ayuu igu soo baxaya halkan waxaad ka arkaysaa bukaankan waqtigii la diiwaangeliyey
halkan waxaad ka arkaysaa bukaanka ID-giisa, halkaa waxaad ka arkaysaa bukaanka magaciisa, halkaa waxaad ka arkaysaa phone numberkiisa, genderkiisa, halkaa waxaad ka arkaysaa age-kiisa, halkaa iminka type-ka uu yahay. Hadhow tolo ayaynu kasii hadli doonaa outpatient iyo waxaas waxay yihiin. Halkaa delete-kii iyo update-kii weeyaan. Marka haddii bukaankii ugu dambeeyay aynu rabno, halkaas waynu kala bedeli karnaa. Bukaanka ugu dambeeya ayaa noo soo gali karaa. Halkaa haddaynu date-kii waxaynu ka dhigan karnaa filtering. Date-ka ugu dambeeya halka ugu horeysa ii soo geli, ama date-ka ugu horeeya halka ugu horeysa ii soo geli, oo date-ka ugu dambeeyana xagga dambeysa ii soo geli. Halkan waa patient ID-gii. Marka waxaanu samayn karnaa filtering ayaynu ku samayn karnaa inagoo patient ID-ga ugu horeeyana soo horeysiin karnaa. Patient ID-ga labaad saddexaad kusii xigsiinayna, ama mayne ka ugu dambeeya soo horeysiinayna. Sidaa filtering baynu ugu kala samayn karnaa. Kolley data fara badan markaynu soo gelino kuwaas si fiican ayaad ugu fahmi doontaa. Markaa muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay keliya sida loo diiwaangeliyo bukaanka. Kolley dhammaan farmasiga qofka jooga laga yaabo bukaan inuu diiwaangeliyo, receptionka laga yaabo inuu bukaan diiwaangeliyo, emergency-ga qofka jooga laga yaabo bukaan inuu diiwaangeliyo. Waxaasoo dhan inay bukaan wada diiwaangeliyaan ayaa macquul ah. Haddaba markaad diiwaangelinayso intaaba maskaxda ku hay. Aad baan idin salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.